Assalaamu calaykum. Walaalayaal waxaa jira laba awoodood oo uu qofku u dhaxeeyo marka uu rabo hadafkiisa, aragtidiisa, hankiisa iyo ujeedadiisa nolosha in uu gaaro. Labadaas awoodood waxay ka dhex hadlayaan ama ka dhex guuxayaan maskaxdaada dhexdeeda. Awood waxaa la yiraahdaa driving force. Awoodda kalena waxaa la yiraahdaa restraining force. Awoodda driving force waxay kuu sheegaysaa wax walba oo positive ah, in aad waxa way guul gaaraysid, in aad horumar ku talaabsanaysid, in nafsadaada iskuulka ay ka qalin jabinayso, in shaqo fiican aad helaysid, in adiga nafsadaada ay ku farxayso, in familkaaga uu ku farxaayo, in ma garanaysaa dadka wax badan aad u qaban kartid. Wax walba oo fiican oo positive ah ayay awoodda driving force ee maskaxdaada ka dhaxlaysa kuu sheegaysaa. Awoodda restraining force waxay kuu sheegaysaa wax walba oo negative ah oo kugu iman kara. Waxaa laga yaabaa inay ku dhahdo waxaan ma samayn kartid, mataqaana iskuulka waad ku dhacaysaa, shaqo fiican ma helaysid. Hoos ayay kuu dhigaysaa awooddaas. Ma garanaysaa dadka maysan samayn, ma adaa samayn kara, xagga u socotaa, waxaan jirin baa mataqaana u tallaabsanaysaa, waxaan waa ku dhacaysaa, waa ku fashilmaysaa. Wax walba markaas negative ah, awooddaas restraining force ee maskaxdaada ka dhex hadlaysa ayaa kuu sheegaysa. Marka waxaa loo baahan yahay qofka raba in uu nolosha hore u socdo, labadaas awoodood in uu isku barbar dhigo oo uu qiimeeyo kan badan iyo kan yar. Aragtidan waxaa la dhahaa force field analysis. Waa aragti leadershipka iyo managementiga lagu barto. Qofka waxa uu qorayaa wax walba oo isaga ka dhigaya ujeedkiisa iyo hadafkiisa in uu gaaro wax walba oo positive ah. Sababtu waxaan u sameynayo ayuu qorayaa, wax walba isaga hore u socodsiinaya. Dhinaca kale qofka waxa uu qorayaa oo uu listigareynaya wax walba uu markaas uu neceb yahay, wax walba uu ka naxayo, wax walba uu gadaal mataqaana u riixayo. Restraining force-ka ayuu qorayaa. Marka waa tool aad isticmaali karto haddii aad rabtid hadafkaaga iyo ujeedkaaga iyo aragtidaada in aad gaarto, noloshana isbeddel aad ku samayso. Muuqaalkan kooban ayaan maanta jeclaaday in aan idinla wadaago. Khayr badan baa idin rajaynayaa. Markale aan is arkaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.